أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، ثم الصلاة والسلام على مصطفاه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalayaal waxaan ku jirnaa dowladeennii aan kaga hadlaynay barashada iyo isla taagga alfikru alislaami. waxa aan insha allahu tacaala ballan qaadnay sidii aad ogeydeen inaan baranno muxuu yahay fikirka islaamigu marka laga soo bilaabo casru ta'siis markii la asaasay, aan soo marino casru tajdiid markii dib loo cusboonaysiiyey, aan ka daba geyno casru tafciil markii la falgeliyey si loo shaqaysiiyo insha allahu tabaaraka wa tacaala. marka fikirka islaamigu waan soo tacriifinay, dib uguma laamayno. maxaa la dhahaa fikir islaamiya? waxaan kaloon ka soo hadalnay anwaacda uu leeyahay fikirka islaamigu. marka maanta insha allahu tacaala waxaan ka hadlaynaa waa darsigeennii labaad. meel fog baan ka soo bilaabaynaa insha allahu tacaala. waxaan isweydiinaynaa maraaxishii uu soo maray fikirka islaamiga markii la asaasay. marka marxalatu ta'siis baan isla taagaynaa caawa ama darsigeena maanta galabta. marxalatu ta'siis waxa weeye siduu u asaasmay fikirkan islaamiga ah. maxaa keenay inuu asaasmo? maxay ahaayeen taxadiyaadka ka hor yimid? sidee buu ula falgalay taxadiyaadkii ka hor yimid? maxay tahay muuqaalada uu leeyahay fikirka islaamigu? waxaan kaloo ka hadli doonaa wa-ayo rumuusta fikirka islaamiga ah fi casri saxaaba. mufakir islaami ayaa ahaa saxaabada waqtigoogii. dad fara badan markay maqlaan kelmadda mufakir waxay u macneeyaa inay tahay kelmad cusub oo iminka bilaamatay. maya, kelmaddu waa kelmad loon isticmaalin ka mustalax ahaan, laakiin la isticmaalayay ka madmuun ahaan. marka aan leenahay hebel waa faqiih, waxay ka dhigan tahay hebel waa mufakir islaami ah. fiqigu waa maxay? fiqigu qofku markuu faqiih noqdo waa maxay? waa marka uu gaadho casriga oo marka uu gaadho marxalatu lijtihaad. fuqahada taqliidiyiinta markaan ka reebno, alfaqiihu alasaasi waa qof gaadhay marxalatu lijtihaad. ijtihaadku muxuu yahay? waa marxalatu tacaamuli maca annas, inuu qofku la dhaqmi karo aayadda iyo xadiiska, kadibna ka soo saari karo solutionka, uu uga soo saari karo bulshada isagoo fiirinaya waaqica uu ku nool yahay. marka waxaa loo yaqaanaa mawduucaas alfiqhu alislaami. marka fiqigu waa marxalo mutaqadima min maraaxil tafkiir. waa marxalad aada u horeysa oo ka mid a maraaxisha tafkiirka. waxaan oran karnaa fiqigu waa marxalatu maa bacda tafkiir. oo marka aan leenahay hebel waa faqiih, waxay ka dhigan tahay wuxuu gaadhay darajad ka sareysa mufakirnimadaba. walidaalika culimmada maanta waxay baadhaan inay dadku maraan 5 jaranjaro si ay u noqdaan jaranjarada ugu sareysa si ay u gaadhaan. 5ta jaranjaro waxaa la dhahdaa jaranjarada koobaad طaalibu cilmin, qofku wuxuu noqday arday cilmiga barta. mutacalim buu noqday, aqoon buu yeeshay, wuxuu ka baxay marxaladda uu waxna akhrinayn waxna qorayn. waxaa ugu xigta marka uu halkaa ka baxo shahaaduu qaadanayaa, ama ibtidaa'i amba icdaadi iskoolka dhexe amba iskoolka sare amba jaamicaddii amba mastarkii amba doctoragii buu qaadanayaa. hadihi almaraaxilu kuluha tajcaluka mutacaliman. waxay kaa dhigaysaa inaad tahay qof wax bartay. maxaa ku xiga? marxaladda muthaqafka. muthaqafku waxa weeye waa qof aqoomo badan ku darsaday. aqoomihii badnaa uu aqoontiisa ku darsaday waxa u keentay inuu yeesho position nolosha, inuu mowqif istaago. markaa buu noqday qofkaasi intellectual almuthaqaf. annaka Soomaali waxaa loogu macneeyey aqoonyahan. waxaa ku xiga marka uu qofku musaqaf ka baxo
marxalada saddexaad waa marxalatul mufakir, waa marxalada uu qofku noqonayo qof mufakira oo afkaar curiya. musaqafnimadii buu kor uga kacay. waxay dhahdeen kullu mufakirin muthaqaf walaysa kullu muthaqafin mufakiran. nin wal oo mufakira waa musaqaf, laakiin muthaqaf kastii maaha mufakir. idan marxaladaasi uu tagay ee saddexaadi waa marxalatu lmufakir. marxalatu lcaalim baa ku xigta. waa alcaalim waxa weeye marxalatu takhasus addaqiiq. waa marka uu qofku nolosha ka qaato marxalad takhasus buu bartay. matalan wuxuu ku xeel dheeraaday diinta fiqiga amba xadiiska amba tafsiirka ambaba cilmiga fisigiska, oo weliba fisigisku wax kasii takhasusay. cilmiga falaga waxbuu kusii takhasusay. hada yusama caalim. caalim nuclearka ah, caalim biology, caalim dhakhtar ah. waa marxala. marxalada ugu dambeysa waa marxalatu lfilosof. qofkani waa filosof amba waa filosof. waxay ka dhantahay marka uu qofku abuuri karo aragtiyaal iyo nadariyaad. marka ikhwat aliimaan, waxaasi waa iska muqadimo une. saxaabada nebiga ridwaanullaahi calayhim iyo ka asaasay fikirka islaamiga ah. siday u asaaseen fiqiga islaamka, siday u asaaseen tafsiirka. culumta aan maanta ku dhaqanno boqolkiiba 90 casru saxaabay abuurantay, amba ha la qoro amba in la qorin, iyo kaa abuuray. marka fikirka islaamiga ana saxaabadii nebiga ayaa sameeyey, gaar ahaan marxaladii alkhulafaa raashiduun, afartii khulafo ee uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam calaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa alraashidiin alhaadiin almahdiyiin caduu calayha binnawaajidi sala allahu calayhi wasalam. waxa weeyaan walaalayaal, marxalatu ta'siis baa bilaabayna. marka waxaan iskula soconaa hal lambar 1 waxaan odhanay waa marxaladii ta'siiska. marxalatu ta'siis markaan leenahay waa marxaladii fikirka islaamigu asaasmay. siduu asaasmay? markii uu qur-aanku soo degayey fikirka islaamigu waa jiray, oo cumar bin khataab baa ijtihaadayey, abubakar baa ijtihaadayey, cali baa ijtihaadayey, waxaa ijtihaadayey maaragtay saxaabada mucaadi ibnu jabal, oo nebigu wuxuu kiri sal slam sidaad u xakumi markuu iman u dirayay, kitaabkan ku noqoni haddaad ka weydid, sunnahan ku laami haddaad ka weydid, ajtahidu walaa aalu, waan dadaali buu iri, xal baan keeni. macnaha qiyaas baan isticmaali, caqligayga yaan isticmaali. hadday sidaa tahay haddaba fikirka islaamiga ikhwaani fillah ee waqtigii khulafaa raashidiinka abuurmay, marxaladuu abuurnay waxaan u bixinay marxalatu ta'siis. su-aasha aan isweydiin ugu horta waxay limaada asbaabu ta'siis, maxaa keenay inuu fikirka islaamigu marxaladii saxaabada asaasmo? waxaa keenay ilaa iyo 5 arrimood. number 1 waxaa keenay wujuud ataxadiyaat. taxadiyaad baa saxaabada hor yimiday u baahan inay xal u helaan. marka afan xal bay u baahdeen saxaabada rasuulku sal slam iyo khulafaa raashiduun mashaakil fara badan oo hor yimiday. markaas waxaa ka mid ahaa alfaraaq asiyaasi. waxaa yimiday markuu nebigu dhintay sal slam, isagaa hogaamiye ahaa. maxaa yeela hogaanimadii dowladda islaamka sidaan xal ugu helnaa? waxay noqotay awal ijtihaad saxaabadu isugu yimaadiin oo fikrad ay curiyaan, adduunka hore u jiri jirin. marka waa faraaq, waxaa dhacay faraaq siyaasi ah. waxaa kale oo dhimashada nebiga daatadeeda inuu rasuulku dhinto sal slam baa keensatay in fikir islaamiya abuurmo. maxaa yeele markii hore waa la ijtihaadayey, ijtihaadka hadduu nebigu aqbalana waxyi buu noqonayey, hadduu diidana waa waxyi baa diiday. laakiin imika ma jiro waxyi kaloo soo degaya oo saxaya. marka waa inay saxaabadii ijtihaadaan wey. marka taasina waxay keentay inay maaragtay arrintaasi ay imato. arrinta kale imatay wuxuu ahaa arrinta loo bixiyey alfutuuxaat. muslimiintu waxay fureen adduunye cusub, jasiiratu carab bay ka baxeen, wadano waaweyn oo civilizationna lahaa bay fureen,
waxay la kulmeen ummado kale oo cusub oo xadaarada lahaa afkaar lahaa inay la falgalaan taasina waxay keentay inuu abuurmo fikir islaamiya oo qur-aanka iyo xadiiska laga soo qaadanayo waxyiga oo fikirkan lagaga hortagi karayo waxaa kaleeto oo keentay dowlado waaweyn baa lala dhaqmay sidii dowladdii bisantiga sidii dowladdii pershiyaanka dowlado waaweyn hindiya maaragtay chinaha iyaa laysku hor yimiday muwaajahadii la muwaajaheeyey fikir buu u baxday waxaa kaloo ka mid ahaa annawaasil alfiqhiya والنوازل الاقتصادية والنوازل السياسية والنوازل الحضارية waxaa muslimiinta kusoo maaragtay noloshooda kusoo dhacay waxyaalo cusub oo dhinaca siyaasadda ah waxyaalo cusub oo dhinaca dhaqaalaha dhaqaale ay hore u aqoon yaa yimiday waxaa soo biiray waxyaalo cusub oo dhinaca ilbaxnimada ah waxyaalo cusub oo waxaa soo biiray dhinaca maaragtay bulshada ah waxay u baahnaatay waxaasoo dhan in fikir islaamiya oo arrintaasi qaadi kara in la abuuro oo islaamka laga soo saaro marka waxyaalada keenay asbaabu nasha kuwaas bay ahaayeen haddaad dib ugu noqotaan ijtihaadkii cumar radia allahu canhu amba ijtihaadkii abubakar amba tii cusmaan amba tii cali amba tii mucaawiya amba tii cabdullahi ibnu zubayr amba tii alxasan ibni cali haddaad ku wada noqotaan oo aad dib u eegtaan waxaad arki doontiin waxa loo bixiyey ahamu malaamix alfikr fi casri alkhulafaa waxyaalada ugu waaweynaa ee saxaabadu u ahaa macaalim lagu kala garan karo fikirka saxaabada ridwaan ullahi calayhim khaasatan alkhulafaa alarbaca waxa ugu horeeya waxa weeyaan fikirka alcadl cadaaladda say uga hadli jireen cadaaladdu waa malmax weyn oo fikriga islaamiga ku duuro kelmadda alcadl meel kasti kelmadda cadli way ku qoran tahay waana malmax waana maclam waana maqsad malmax waa waxa ku soo jiidanaya oo aada uga muuqda fikirka saxaabada maclamkuna waa waxyaalada kutusaya tilmaamaha jidka kutusaya maqsadkuna waa ujeedada shareecadu u ibatay sidaan arki doona insha allahu tacaala marka alcadli baa ugu horey laba waxaa ku jiray ashuura in la tashado kelmadda ashuura waa in la tashado reer galbeedku waxay isticmaalaan kelmadda democracy oo ka dhigan shicibka xukunka shicibka shuuradu maaha xukunka shicibka shuuradu waxa weeyaan amarka muslimiinta in laga qeybgeliyo amarkuna waa maxay waa powerka shicibku ma xakumaan dowladda waxaa xakuma naskaa xakuma ilaahay kitaabkiisa lagu xakuma iyo sunnaha rasuulka sal slam laakiin talada iyo powerka iyo muslimiintu ka qayb galaan walidalik buu ilahay yihi ka qayb geli nabiga washaawirhum fi lamri amarka ka qayb geli dadka muslimiinta ah wa amruhum shuuraa baynahum markaa shuuradii waa labo arrinta saddexaad ee xoog u muuqata waxa weeyaan alijtihaad sida ay muslimiintu u isticmaalayeen caqliga muslimiinta lama ilqeyn lamana tuurin lamana joojin dhibaato walbana waa laga hor qaaday sida arki doono si uu caqligu u fikiro walidaalika dembiga ugu weyn ee caqliga laga galay waa labo taqdiisu alcaqli amba ta'liihu alcaqli iyo ilqaau alcaqli in caqliga la weyneeyo amba la ilaaheeyo waa mid taasi amba in caqliga la tuuraba laa hada walaa daka islaamku labadaa midna uu diiday la alcaqlu ilaahan wala alcaqlu mulqan caqliga lama tuuri karo ode wuxuu ilahay nagu kalifay waa caqli waxa qur-aanka iyo xadiiska lagu fahmaya waa caqli laakiin caqligu kama sareeya sharciga oo caqligu maaha wax walbaba taasina waa midaas weeyaan marka ijtihaadku waa marxaladda aad buu u muuqda arrinta afaraad midnimada alwaxda islaamku wuxuu ku salaysan yahay laba midnimo tawxiid alkhaaliq waxdat lumma in ilaahayna la mideeyo ummadana la mideeyo ilaah qura inaan caabudno ilaaha qura dadka caabudayna inay mid noqdaan wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu marka tawxiid alkhaaliq waa in khalqiga ilaahi abuuray la mideeyo
labo waa in ummadan ilaahay caabudaysa mideynayana waa in la mideeyo oonan la kala saarsaarin oo la isku dirin marka taasina wax weeyaan waa arin muuqata weeyaan arinta shanaad waxa weeyaan alfutuuxaat muslimiintu gaaladu waxay u bixiyeen isballaarsigii isballaarinayeen isticmaarku waxa weeyaan dhul baan camiraynaa dhulka waan camiraynaa dhulka dadkii lahaa ay camiri waayeen intaan u tagno iyaan baraynaa sida loo camiro laakiin culimo kale waxay u bixiyeen alistikhraab sidee dhulka loo kharaabiya isticmaar maynan ahayn guumaysi buu ahaa sida afka soomaaliya ku fiican laakiin islaamku uma bixin ballaarkuu ballaarinayay laa isticmaar walaa istikhraab muxuu u bixiyey alfutuux futuux maxaa loogu bixiyey islaamku wuxuu furayay alquluub alcuquul albilaad alafkaar alxadaaraat uu furayey quluubtuu furayey towxiidku u furayey kii doonaa qaadanayay laa ikraha fi diin kii diidana xuquuq buu lahaa cuquushaa la qancinayey kii qancana waa soo gelayey kii qanci waayana waa la sugayey wadanadaa la furayey cadaalad baa lagu furayey dadku iyakaa ismaamulayey laakiin waxay isku maamulayeen baa la barayey hadday diidaanna lama qasbayn waxa weeyaan islaamku kaana yaftax oo furayey waa fatxi baa loo bixiyey marka kelimatu lfatxi waa kelimad u baahan inaan mar la isla baadho waxaa aada u muuqda malaamixda muuqda waxaa ka mid atandiimaat islaamku wuxuu nidaamiyey mujtamacii markii hore mujtamac wuxuu ahaa munadaman tandiiman qabaliyan bulshada saxaabadu waxay ahaayeen dad si reera u nidaamsan maalan waxaad maqlaysaa taariikhda islaamka maa qabla alislaam hebel waa awsi waa khasraji hebel waxa weeyaan waa maaragtay waa reerkaa buu yahay waa qurashi amba hebel waa hawaazaan amba hebel waa fulaan wuxuu ku abtirsanayaa abidar alghifaari reer buu ku abtirsanayaa qofku mandiqad maaha dhul maaha waa dhiig waxaa dhada alintimaa damawi abtirsiin dhiig bay lahaayeen saxaabadii markii ay diinta galeen islaamku uu qabsaday tandiimkii waa bedelmay wuxuu isku bedelay tandiim beled in lagu abtirsado iyo tandiim xadaara iyo tandiim diini inama almu'minuuna ikhwa والذين كفروا بعضهم أولياء بعض markay soo dhaaftay wuxuu qofku noqday madani reer madiina wuxuu noqday kuufi wuxuu noqday basri wuxuu noqday dimashqi wuxuu noqday bagdaadi magaalo ku abtirsaday alintimaa alwatani markaasina waxaa imatay haddana alintimaa alxirafi alkhayaat hebel waxbuu tolaa ayaa imatay marka wixii qofku shaqadii ka shaqaynayay iyuu ku abtirsaday alcaskari marka qofku wuxuu noqday abtirsiintii mihanigii waxayna yidhahdaan culummadu waa bidaayat alxadaara marka ay dadku abtirsiintii ka baxaan dhiigga ay galaan abtirsiinta fikirka waxaa kale oo aada u muuqda fi malaamixda aliqtisaad muslimiintu waxay abuureen dhaqaale abuureen fi casri asaxaaba fi casri alkhulafaa'i araashidiin dhaqaalihii basiidkaa bay ka baxeen dhaqaalo murakabay abuureen oo mucaqad oo adag dhaqaalihii beeraha yar iyo adhiga bay ka baxeen dhaqaalo waxay noqdeen waraa albixaar badaha wax laga soo qaadayo la iibgeynayo magaalooyin baa la furay marka dhaqaalihii islaamku wuxuu noqday wax weyn vision buuna soo kordhiyey see dhaqaalaha kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaai minkum xoolihii xoololayda dhex joogay waa la dhaadhiciyey tagdiisu tharawaat in ay xoolaha ummaddu gacan ku ururto waa loo diiday taftiit baa lagu sameeyey taftiitu sarwa sarwadii baa la kala firdhiyey xataa tadhaba ilaa kulli makaan si ay meel walba u tagto waxaa abuurmay markaa tijaara xura ba abuuratay waanad ogtihiin qur-aanku halkuu dhigay tijaarada wuxuu garab dhigay jihaadka fii suurati almuzammil markii dadka muslimiinta qiyaamuliilka laga saamaxay min alwujuubi ila sunna wa min almaaragtay ballaadhistii lasoo ururiyey faqra'uu maa tayasara bilqur'aan yidhi sababtu maxay ahayd calima an waxa ilaahay wuxuu ogaaday inay dad buka ay nagu jiraan wuxuuna kaluu ilaahay ogaaday inay jiraan dad an sayakuunu minkum marda wuxuu ogaaday inay qaarna jihaadka geli doonaan qaarna ay yadribuuna fi lardi dhulka ay tijaaro u geli doonaan
idan waxa weeyaan waa la isma bandhigay aljihaad waxa weeyaan بالسيف iyo aljihaadu bilmaal iyo aljihaadu bilfikra. Okay, waa taasina waa taa waxyaalada ood arkaysiin oo mafaahiimta saxaabadu ay abuureen waxaa ka mid ahaa amba islaamku abuuray oo saxaabadu ay fikri u macneeyeen tagyiiru lmafaahiim. mafaahiimta dadka waqtigaa ka dhanacsanaa ayaa la bedelay. مثلا مفاهيم العباده وكذا العباده waxay u yaqaaneen in ilaahay la caabudo waqti nolosha ka mid ah laakiin islaamku wuxuu keenay alcibaadatu shamila alcibaadatu tawila nolosha dhan ah markaas waa cibaada. wuxuu islaamku keenay salaada waxa loo yaqaanay duco, wuxuu keenay shaqo salaad loo yaqaano, zakada waxa loo yaqaanay shaqo gooniya, zakadii oo mafhuumka la qiyaamatay, waxay imatay siyaasadii oo mafhuumka leh, waxay imatay ijtihaadkii, jihaadkii, كل ذاك مفاهيم عصب وإسلام كله هرين. وحاكرت أو آذوا يا بدر وحويا غير المسلمين في المجتمع المسلم. ذاتك أن مسلم كأن هين أو صدح قلاع مركي مسلمين تلنو لهين حقوقهم محي تاي مسلمين توحيا وحللنا الضد الذميين ضد دين تو دي اسكا هايستا أهل الكتابة لكن مسلمين تكون حنار حقوقهم حويا ضد وحاجرة مستأمنين لا يرحضون oo intay noo yimaadeen immigration oo kaleeta oo weydiistay muslimiinta ammaan weydiistay yakuna xuquuqda leeyahay maxay tahay iyo dad loo yaqaan al-harbiyiin oo muslimiinta la dagaalamaya kuwaasina maxay tahay waxa laga yeelayo waxaas oo dhan buu islaamku uga hadlay bishaklin fikri si fikri looga hadlay. waxa weyn hadaba ikhwaani fillah mawduucaas waxaan u bixinay ahamu malaamix الفكر الإسلامي في عصر الخلفاء الراشدين: العدل، الشورى، الاجتهاد، الوحدة، الفتوحات، التنظيمات، الاقتصاد، المفاهيم وعبادة غير المسلم في المجتمع الإسلامي. وحكى له مهم هيد أنا شايفه القضاء جيشك يدون عجيبة جيدك محكمتنا سي عجيبة يسلامكم usoo bandhigeen. okay taasi maxaan ku jirnaa waa marxalatu ta'siis waa marxalada khulafaa ar-raashidiin. halkaasi waa asbaabu nashaa soo aranay limaada waxaan kaloo qoranay ahamu malaamix al-fikr al-islami fi hada al-asr. imika waxaan u imaanaa dowr al-khulafaa dowrka ay ku lahaayeen khulafaa ar-raashidiinku fi idaarati ad-dawla fikriyan dowladii islaamka ay u maamuleen dhinaca fikirka iyo wanashru al-fikr al-islami fikirka islaamkana say u fidiyeen khulafaa ar-raashiduun oo arbaca qaar waxay ka dhigaan khulafaa ar-raashiduun waxay ku daraan maxaan ku rahdaa al-Hasan ibn Ali iyo waxay ku daraan Abdullah ibn Zubayr sida Hakim al-Matiri doctorka dhaaday Kuwaitiga wuxuu arkaa al-khilaafa al-islamiyya ar-rashida inay soo gaadhay 75 inay dhacday waa markii Abdullah ibn Zubayr maka lagu dilay ridwaanullahi alayhima ilaa raala ka noqday Abdullah iyo abihi Zubayr al-Awam iyo hooyadii Asma bint Abi Bakr ridwaanullahi alayhim ajma'in. dowrka marka khulafaa ar-raashiduunka ay ku lahaayeen fi idaarati ad-dawla maxay ahayd waxaan oran karnaa ilaa iyo waxaan gaarsiin karnaa maxaan ku dhahdaa ilaa iyo 7 waan gaarsiin karnaa maya 8 baan gaarsiin karnaa ilaa 8 baan ku soo koobaynaa dowrka ay saxaabadu khulafadu ku lahaayeen arinta aan oranay idaaratu ad-dawla fikriyan wa nashru al-fikr al-islami. waa markii ugu horeysay waa markii ugu horeysay ee dowlad lagu taago mafhuumka islaamka dowlad lagu taago in la yiraahdo suurtagal ma aha diin aan dowlad lahayn. لأول مرة في عصر مارتي عيسى دينتو دولة ملهين دولة ده waxaa iska lahaa ninkii la oranayay Greega waxaan jeedaa Roomaga diintana Ciisa waday laakiin diinta islaamku markay imatay laa yumkinu ma suurtagelayso in diin islaam ay jirto aan dowlad haysan hada غير ممكن ma suurtagelaysa دين إسلام أون دولة لهين. ولذلك وحال هذا صحابة وحي بلوريين
waxay projectiga ay balwareeyeen ay bisleeyeen wuxuu ahaa mashruuca loo yaqaano laa diina bilaa dowla. diin ma jiraysa haddaynan dowladi jirin. waa muhiim jiddan. suuratu alxadiid aayadda 25 ilaahay wuxuu yidhi subxaanah laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaat, waxaan soo dirnay rusul annagu aan leenahay, waxaana soo raacinay caddeemo sheegaya inay rusul yihiin. see loo garanayaa? hadduu qofku yidhahdo anu ilaahay baa soo diray, maraggii keen baa lonaya, maraggoogii way wataan bilbayinaat. wuxuu ihi ilaahay waanzalnaa waxaan ku soo dejinnay macahum oo la socday ambiyada iyo rususha alkitaab, kitaab baa la socday. kitaabka maxaa garab yaalay? walmiisaan, iyo miisaankii kitaabka lagu dhaadhicin lahaa. wuxuu yidhi ilaahay waxaa saa u yaallay liyaquuma annaasu, si ay dadku ugu taagmaan bilqisti ay bilcadli, cadaalad inay helaan dadku. idan limaada diin? diintu maxaa u imatay? liiqaamati dowla, inay dowlad taagto. walimaada dowla? maxay dowladdu faa'iido u leedahay? waxay dowladdu faa'iido u leedahay inay dadku helaan cadaalad. hadday dadku cadaalad waayaan dowladi ma jirto weyaan. walidaalika ibnu taymiya raximahullah kelmad qiimi badan ayuu ku yidhi kitaabkiisa asiyaasatu sharciya. wuxuu yidhi ina allaha bacatha arusula waanzala alkutuba liyakuuna annaasu calaa gaayati maa yumkinu min asalaax laa lirafci alfasaadi bilkuliya faina hada mumtanacun fi alطabiicati alinsaniya id laa budda fiiha min fasaad. ibnu taymiya raximah llah marka aan akrinayna kelmadan iminka aan akrinayo, anu waxaan ibnu taymiya ku tilmaamaa alfaylasoof alsiyaasi alislaami alwaaqici. wuxuu ahaa faylasoof aragti islaama leh, fishin siyaasiya leh, laakiin realism iyo waaqiciya oon waaqica ka baxsanayn. mithaali ma ahayn, idealisti ma ahayn, khayaal kuma nooleyn, xaqiiqadu ku noolaa. walidaalika wuxuu hi u fiirsa kelmadiisa ina allaha ilaahay bacatha wuxuu soo saaray, aayaddii buu isha ku haya, arusula yuu soo diray, soo saaray. waanzala alkutuba, kutubna wuu soo daadejiyey. limaada? liyakuuna annaasu, si ay dadku u noqdaan calaa gaaya, intay gaari karaan oo maa yumkinu suurtagal ah. kalimaadkao dhan waa kalimaad daqiiqa, laskama dhahayoon qaayo maa yumkinu min asalaax, inta ay ka suurtagali kartaba inay wanaag gaadhaan iyaa la suurtagelinaya. ma aha buri laa lirafci alfasaad bilkuliya, fasaadka oo dhan lama baabi'in karo. suurtagal ma aha adduunka in fasaadka laga tirtiro bilkuliya. maxaa yeelay faina hada arintaasi mumtanac, ma dhici karayso fi abiicati alinsaniya. insaanka naajirkiisa fasaadka lagama saari karo. wuxuu yihi id laa budda fiiha min fasaad, waa inuu fasaad jirown, si lagaba maarmaana ayuu fasaadka u jiraya. walihaada waxay dhahdeen fuqahaau dowla, waxay dhahdaan taqliilu lfasaad laa tathiiru lfasaad. fasaadka lama tirtiri karo, waa la yarayn karaa. waxay dhahdaan salaaxa waa la kobcini, ee adduunka o dhan salaax lama gaadhsiin karo. hada gayru mumkin. walidaalika ciwaankan u bixiyey waxa weyaan markaan ka hadlayo ibnu taymiya, waxaan dhahdaa alsiyaasatu bayna almithaaliya walwaaqiciya. kelimada aflaatoon oo kale, almadiina alfaadila, magaalo aan waxba ka dhacayn oo wada khayra adduunka ma jirto, iyo waaqiciyadii inta u dhaxaysa waa maxay? waa taa ibnu taymiya uu sheegay raximah llah. marka maxay ku guuleysteen saxaabadu dhinaca maaragtay idaarati dowla fikriyan, inay caalamka ka dhaadhiciyaan inay diintu muhiim tahay, daruuro tahay. laakiin diinta daruuradii waxa ay u baahan tahay dowlad. hadda u fiirsada baasha, saxaabadu ma ahayn dad caadiya, taa iyakaa dejiyeen, hay ka soo qaadeen min alqur'aan wasunna. arinta labaad ay ku guuleysteen wuxuu ahaa ee ahayd dowrka khulafaa fi idaarati dowla fikriyan, waxay ahayd iijaad annadariya siyaasiya sharciya alwaaqiciya. waxay abuureen aragti, iijaad annadariya, aragti bay abuureen, nadariyad bay abuureen, nadariya
teorigaas oo siyaasi ah oo haddana sharci ah oo qur'aanka iyo sunnaha ah oo haddana waaqici ah oo reality ah waxay yidhaahdeen daruuratu iqaamati sulda inay dadku helaan power waa necessary waa lagama maarmaan suurtagal maaha waxaa loo yaqaana alfaraaqa siyaasi inay dadku bilaa dowlad noqdaan waa fasaadun mutlaq hadday dadku dowlad la-aan ay ku dhacaan fasaadkaasi waa mutlaq xad male walidaalika waxay yidhaahdeen daruuratu ikhtiyaar alimaam in imaam la doortaayi waa necessary halkaa maxay ka soo saareen waxay yidhahdeen idaa kaanat iddiinu bilaa dowla ayna dhici kareen fadowlatu bilaa sultana ma dhici karto dowladduna waa inay power yeelato laabudda maxay waa in la helo power waa in la helo oo maaragtay dowladdii xakumaya waa inay jirto fikrad iyo koox dowladda wada walihada alimaam almaawardi raximah llah isagoo akrinaya taariikhda saxaabada wuxuu yihi u fiirsada wuxuu yihi alimaamatu maamulku sultada maxaan naqaana power afka ingiriishka pouvoir afka faransiiska maamul afka carabiga afka soomaaliga sultan waa loo yaqaana carabiga laakiin shareecadii waxaa taqaanaa imaama imaamatu dunya adduunka iyaa horjooga dadka wa imaamatu salaad salaadan iyaa horjooga wuxuu yihi u fiirsa imaam mawardi wuxuu yihi almaawardi waa faqiihii weynaa ee qoray kitaabka alaxkaam sultaaniya qoray weyaan wuxuu yihi alimaamatu he mawduucatun likhilaafati الnubuwati fi xiraasati الdiini wa siyaasati الdunya wacaqduha liman yaquumu biha fi اlummati waajibu bilijmac wuxuu yihi imaamadu baawarku waxaa looba sameeyey mawduucatun waxaa loo keenay likhilaafati الnubuwa nebinimadii maadaama ayna soo noqonin uu nebi kale soo baxayn iyadaa meeshii galaysa iyadaa bedilaysa nebinimadii maxay u bedilaysaa fii xiraasati diin diinta ilaalinaysaa wa siyaasati dunya adduunkana way dhaqaysaa diintu waa in la ilaaliyo lama dhaqo iyada ximaaya ilahay waa soo dejiyey adduunku laakiin waa isbedelayaa waa in markaa la dhaqo wuxuu yihi wacaqduhaa in la jirsiiyo caqdi contract weyan in la jirsiiyana liman yaquumu biha fi lumma oo ummadda dhexdeeda laga hela qof ku saro kaca in la keenana waa waajibun bilijmac shareecadda islaamku waajib bay ka dhigtay bilijmac kul alculamaa itifaaq bay ku yihiin kul almadaahib itifaaq bay ku yihiin markaas taasina waa maxay saxaabadaa sameeyey alimaam ibnu taymiya wuxuu yihi wilaayatu amri nnaas min acdami waajibaati اdiin in dadku ay maamul helaan waa waxa ugu weyn waajibaadka diinta bal wuxuu yihi laa qiyaama liddiini ila biha diintu ma soconayso bilaa suldo bilaa power imaam yaa yidhi ibnu taymiya raximah llah imaam ghazali wuxuu yihi asulطaanu in la helo maamul daruuriyun waa necessary waa lagaba maarmaan maaha waajib way ka saraysaa fii nidaami اdiin nidaamka diinta u baahan maskiidka u baahan salaada u baahan soonka u baahan xashka u baahan cibaadadiiba u baahan fii nidaami اdiin wuxuu yihi wa nidaami اdunya iyo nidaamka adduunyada u baahan suldaankii wa nidaamu اdunya in nidaam adduunya la helana oo dadka adduunka loo nidaamyana daruuriyun waxay necessary u tahay fii nidaami اdiin in diinta la nidaamiyo adduunka oo la nidaamiyo waxay daruuro u tahay diinta oo la nidaamiyo wuxuu yihi wa nidaamu diin diinta oo la nidaamiyana daruuriyun lilfawz waxay daruuri u tahay in lagu liibaano bisacaadati اlaakhira in aakhira la liibaano wuxuu yihi wa huwa in aakhira la liibaano janno la galana maqsuud اlambiya waxay ambiyadu usoo baxeen wuxuu yihi markaasi radia allahu canhu waraxima allah fakaana wujuub اlimaam in imaamka waajib ay tahay in la sameeyo min daruuraati sharci sharciga daruuraadkiisay ku jirtaa alladii laa sabiila ilaa tarkihi
meel laga maraa ma jirto lagama tagi karaa qofka hore waan ka tagayaa isaga qaldan okay marka waxaan fahanay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ummadda islaamka dhaxalkay uga tageen ee ugu culus waxaa ka mid a in ay yidhaahdeen iqaamatu dawla inaa dowladda taago oo lagu taago mafhuum islaamiya taasina waxaa ka dhashay laa diina bilaa dawla laa diina bilaa dawla waxaa ka dhashay inay daruuro tahay marka labaad ikhtiyaar in la helo dad dowladda maamula sulta waa in la helo yaquulu ibn khalduun raximah llah wuxuu yihi ibn khalduun caalimkii ijtimaaciga ahaa nasbu limaami waajibun inuu hogaan la doorto waa waajib sida aan u orano salaada in la tukado waa waajib zakada qofkii karaya inuu bixiyo waajib soonka qofkii awoodo inuu soomo waa waajib xajka qofkii mustaiica inuu tago waa waajib in waalidka la adeeco amba loo bari yeelo waa waajib in xaaskaaga la masruufo waa waajib inay haweenku ay odaygooga adeecaan waa waajib hada waajib waxaa waajibkaa la mid ah oo kaba culusbaba marka qaarkood nasbu limaam in hogaamiye la samaysto waqad curifa halkee laga keenay waxaa laga keenay wujuubuhu inuu waajib yahay waxaa lagu gartay fi sharci biijmaaci saxaaba maaha meel kale lagama soo qaadin saxaabadaa fiqigaa iskugu tagtay say iskugu tageen liana asaxaabata ridwaanullaahi calayhim saxaabadu baadaruu ilaa baycati abi bakrin ridwaanullaahi calayhi wa tasliimi nadari ilayhi fii umuurihim wuxuu yihi markii uu nebigu dhintay sal isla markiiba way yaaceen baadaruu may fadhiisaan way baadaruu hagee u yaaceen inay abibakar doortaan oo weliba ay amarkoogana u dhiibtaan isaga umuurtooda dhan bay gacanta ka rideen maamulkiibay u dhiibteen radia allahu canhu idan arinta labaad ay saxaabadu sameeyeen ee min ibdaaci saxaaba min cabqariyati lfikr fikirka islaamiga ta'siisiga ay saxaabadu sameeyeen taasaa ka mid ahayd saddex saxaabadu waxay sameeyeen nadariyad aan hore u jiri jirin waanan arin aan baaray weeyaan arrintaasi sinaacatu nadariyat alcaqd ayay sameeyeen waxaa dhahdo caqdi islaamku asalkiisaba fikrat lcuquud buu sameeyey fikrad la dhahdo in marka wax la galayo heshiis lagu galo qoys baa la abuuraya waa caqdu zawaaj bayc mushtari baa la galaya waa caqdu lbayc kiraad galaysa waa caqdu liijaar amaah baa qaadanaysa waa caqdu lgaraad adduunka dhan islaamku wuxuu ku saleeyey cuquud heshiisyo ilaahayna waa ka yidhi uufuu bilcuquud heshiisyada oofiya yaa ayuha aladiina aamanuu suuratu maarata almaa'ida awalu aaya oofiya cuquuda marka in la oofiya alcuquud bikulliha ya waa min islaamka ka keenay saxaabadu waxay ka soo saareen hadi lcaqdi inay muslimiintu ka bashar ila waa bini aadane inay u baahan yihiin caqdun siyaasiyun bayna alxaakimi washacab qofkan ummadda maamulaya ee daruuriga noqotay in ummadda maamulo ay diintii soconayn bilaa maamul ay dowladdii soconayn bilaa maamul oo bulshadii ay soconayn bilaa maamul maxaa ka dhaxaynaya qofkan wax maamulaya iyo shicibka maxaa ka dhaxaynaya siiqada isku maamulayaan maxay tahay waxay soo saareen waxa dhahdo alcaqd contract bay soo saareen heshiis heshiiskaasi waxaa loo bixiyey caqdulbayca in bayca la wada galo baycaduna maxay leedahay caqdigaasi laba daraf heshiis walba atraaf buu leeyahay laakiin heshiiskani siyaasiga ah ee fikirka islaamiga laba daraf buu leeyahay daraf waxaa dhahdaa shacbi darafna waxaa dhahdaa xaakim labada baa heshiinaysa maxay ku heshiinayaan maamul bay ku heshiinayaan maxaa marka heshiiska arkaantiisu maxay tahay kitaabka iyo sunnaha nagu xakun wixii ay ku jirinna tala nagu xakun madaxana nagama qabsan kartid nama dili kartid nama leyn kartid annaku waxaan nahay dad xor baan kugu dooranay bashar baan nahay bini aadan baan nahay saas ahayd saxaabada waqtigoogi okay arrintaasi waxay qarireen markaa saxaabadu annahu laa dowlata biduuni imaam dowladi ma dhici karto hadduuna jirin imaami walaa imaamata imaamna ma jiri karo hogaamiyana ma jiri karo biduuni caqdin hadduuna jirin heshiis
heshiiskuna muxuu yahay laba daraf buu leeyahay shay waa xaakim iyo shicib. Okay, labadan daraf ee heshiinaya mid waa asal midna waa farci. asalku waa ayo waa ummadda iskale waxan wa amruhum amarka yakale wa shaawirhum iyaga la tasho yakale amruhum amarka yakale adu malihid la tastabid amruhum yakale amarkooga shura waa heshiis waa talo baynahum dhexdooda. idan al-asl wal umma xaakimkuna muxuu noqonayaa huwa alwakiil waxaa loo wakiishay ummaddu inay xakunto. walidaalika gobolada qaar sida Soomaalida waxa dhada baarlamaanka golaha wakiilada wax sax ah kelmadaasi waa wakiilo loo wakiishay in ummadda matalaan fi hunaalika. marka suuradan culimada qaar Dr. Mustafa Zarqa rahimahullah marka uu baaray wuxuu yiri suuradu waxa weeyaan aqdigu waa aqdul wakaala ashbah bi aqdil wakaala wuxuu u dhow yahay aqdiga raado wakaalada qofka wakiil hadduu guri ina uu ku sii xukumo hadduu bayc mushtaraad leedahay kaga tagaysid haddaad reerka kaga tagaysid aqdi baa la qortaa wakaala tani waa aqdul wakaala. marka taasina waa su'aasha wax weeyaan dadku isweydiiyaan maanta waxa weeyaan nadariyada la yiraahdo al-aqd al-ijtimaa'i social contract la yiraahdo oo reer galbeedku uu ku faano oo ay ingiriisku yiraahdaan waxaa bilaabay John Locke baa bilaabay 1707 oo dhintay. John Locke isagaa sameeyay yiraahdaan aqdi ijtimaaciga. Faransiisku waxaa sameeyay Jean-Jacques Rousseau kitaabkiisii social contract social iyo ku sameeyay kitaabkiisii al-aqd al-ijtimaa'i wuxuu dhintay 1778. ay yiraahdaan asalkeegu waa been waxa weeyaan islaamka sameeyay fikriga yiraahdo fikratul aqd bay'ada islaamka ayaa sameeyay. walidaalika waxaan iminka aan daba guraa inuu ibnu taymiya nadariyad daba curiyay isagoo eegaya waxay saxaabadu sameeyeen markuu nabigu dhintay sallallahu alayhi wasallam. marka culamaa al-fikr السياسي الإسلامي waxay qarareen annahu la imaama maamul ma jiro bila aqd al-bay'a haduuna jirin heshiiska bay'adii wala aqda bay'ana ma dhici karo contract ma dhici illa bi rida darafayn labadan daraf waa in raali noqdaan kala dooranay waa in raali yahay kan doorteena waa in raali yahay shicibkuna qof ay jecel yihiin waa inay keenaan oo ay u badan yihiin isaguna waa inuu waxay shicibku u dhiibteen u ogolaado. عقدنا وحارنا وعقد الوكالة ووكالة بنداني ما دام عقد الوكالة هنا محل هذا وعقد الإمامة يمكن فسخها كغيره من العقود عقد وكالتنا وانا فسخها هذا إلا وكالة لا الله وضع الطرف كي لو ديبتين وحركة واروح وكده اللي ما كريه كي ديبين وحركة وكده اللي يسكسعه والله فسخها. وهذا واضح أنا تاسم حي كعطاهي في خطاب أبو بكر هذا الكيس أبو بكر مركي لا دورتين خطبتي سيوقه الرئيس وكفرت أوفر سوحولي أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت وفي رواية وإن زقت فقوموني أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. هذا واضح وياه إلا هي سجال أريمود بكون جرتها لكن ما مش شايفينه ما لنا فكر كسياسي إسلامي كشرحينه يا شيخ دونا سجال أريمود بكون جرتها لكن محولي عمر أبو بكر أيها الناس ضدوا إني وليت عليكم والإيكين ديبي إني قد وليت عليكم ما ملكيني بعد قعدت جردين يا أودي إنه أمضى قبته علماء وحيد هذا صدق جارين مرتين in Abu Bakar uu madax noqdo. jaranjarada koowaad waxay ahayd niqaashkii ka dhacay saacidatu bani saqiifa. niqaash wuxuu ahaa camiiqa oo aad u gundheer shadiida adag buu ahaa isla markaasina muxuu ahaa siyaasi min ad-diraas al-awwal oo siyaasad fikri ku salaysan lagu niqaashay. ibn khaldun baana aad u baaday mas'aladaas markaas halkeen martay muxuu ahaa niqaashkii ka dhacay halkaas بين الأنصار والمهاجرين أو أي كلمة لين كبار القوم تتكهلي تتكوين أبعين ثم تم وترجدي لبعض ترشيح أبي بكر للخلافة إن أبو بكر للرشحي أبو بكر لما دور ولا رشحي
waxaa loo rashaxay inuu noqdo madaxweynihii amba hogaamiyihii amba amiirulmuminiinkii amba khilaafadii islaamka inuu qabto. waa marxaladii labaad. marxalada saalisa waxay ahayd markii miskiidka la yimiday ee dadkoo dhan soo urureen ee la yidhi waa kan abubakar ayaa diidan iyaana ogol, ee intii ugu badday saxaabadu ogolaadeen, wax yar baa diiday. markay ogolaadeen marxaladaa saddexaadi waa marxalatu lbayca. imikuu noqday wuxuu yihi ibnu taymiya markii lasoo rashaxay ma ahayn amiir, laakiin wuxuu amiir ku noqday bibaycati nnaasi lahu, markay dadku baycada la galeen. markaasi abubakar asidiiq muxuu leeyahay wulliitu calaykum walastu bikhayrikum, iniguma khayr badni, ani ilaahay ma dooran weye, nebi ma ihi. wuxuu yidhi haddaba haddaan hagaago itaageera, haddaan ba'naadana itoosiya, adeeca intaan ilaahay adeecay, intaan ku socdo dastuurka islaamiga ee noo wada yaala, intaan ku socdo nidaamka ilaahay noo dhigay adeeca. haddaan adeeci waayana hay adeecina. haddaan ka baxo contractkii, heshiiskii haddaan ka baxo, inakuna ka baxa, lasuma qasbano. markaas fikirkaasi wuxuu ahaa balwaraa dhala, waa la bislaynayey, afgami baa ku dhici doona. laakiin marka arrinta saddexaadi waa taas weeyaan ay saxaabadu ay sameeyeen fii dowrihim fi binaa'i idaarati dowla fikriyan wa nashri alfikr alislaami. arrinta afaraad waxa weeye waxay asaaseen saxaabadu fikir islaamiya oo salka ku haya qiimo dhahda ashuura fi lxayaat, in nolosha lagu saleeyo shuuro, nolosha oo dhan oo kitaabka iyo sunnahay ka soo qaateen. waxayna ka dhigeen ummadda masdarka eeg isha baawarka, bilow ahaan iyo dhammaad ahaan. ma aha masdarka maamulka, maxaa jeedaa ma ahin masdarka shareecadda maaha. shicibku shareecadda ma sameeyo, shareecadda ilaahay baa sameeya, laakiin waa masdaru sulta, sultada baawarka shicibkaa samaysta. walidaalika cumar wuxuu yihi alimaaratu shuuraa, wuxuu yihi dowladnimadu waa talo. wa qaala subxaanah, ilaahay baana sheego wuxuu yihi washaawir, nabigaa la hadlayaa, la tasho hum iyaka fi lamri, amarka kala tasho. wuxuu yihi ilaahay wa amruhum shuuraa baynahum. islaamku wuxuu sameeyey laba majlis, dadka isku khaldaan. majlis shuuraa wa ahlulxalli walcaqdi ka loo bixiyey, dadka waxna xidha waxna gooya. iyo majlis lahado alistishaari, majliska la tashiga. majliska istishaarigu waa majlis lkhubaraa, khubaradaa fadhiya. kaana cumaru yadcuu kibaara asaxaaba, saxaabada waaweyn buu u yeedhayay, wayastashiiruhum uu la tashanayay, waa istishaara. wuxuu u yeedhi jiray saxaabada waaweyn, marka qaarkoodna dhallinyaradu kusoo diri jiray sidii ibn cabaas, wayastashiiruhum. laakiin marka shuuro laga hadlayo waa amarka muslimiinta o dhan, marka laga hadlayo waa majlis shuura wa ahlulxalli walcaqdi, waa dadka goynaya wayaan alqadaaya alkubra, qadiyadaha waaweyn wayaan. markaasi taasina way dhiseen, wayna kala saareen majlis shuura iyo majlis alistishaari. binaagii bay sameeyeen in lasii bislay ahayd, laakiin iyaku way noo taageen. arrinta shanaad waxay dhiseen waxa dhahdo alxuriya fi lfikri siyaasi. fikirka islaamiga waxay ku saleeyeen xuriyadda. kelmadda xuriyadday weyneeyeen saxaabadu. mataa istacbadtum annaas cumar waqad waladathum ummuhaatuhum axraara. goormaa dadka addoonsanaysiin, hooyooyinkood baa dhalay iyo koo xora. waxay dhahdaan reer galbeedku maanta annaasu yuuladuuna axraaran, dadku waxay dhashaan iyo koo xora, haddaba xor ha ahaadaan. ila waa qofku xor buu ku dhashay, waa la addoonsaday, ma fi waaxid dhalanaya. walidaalika doctor xaakim almatiiri kuweytiga waa sheekh weyn oo kuweytiga oo kuweyt laga eriyay imika, wuxuu ku nool yahay dalka turkiga. wuxuu leeyahay kitaab dhahda alxuriya aw ituufaan, waa kitaab fikriga weyn. alxuriya aw ituufaan, binaa linsaanna uu leeyahay kitaab labaad. kutub waaweyn buu leeyahay. waa sheekh yajmacu bayna aturaasi walmucaasara, turaaska iyo casrigu isku xidha inta badan. waana mufakir ka soo baxay jaamicad ku taala dalka ingiriiska. wuxuu yidhaahdaa laa shuuraa bilaa xuriya, dadku ma tashan karaan haddii xaraar ahayn. shuuraan leenahay, ummadda waa in la tashado, lakin ummad la adoonsanaya ka war. iminka matalan majaalis baa jira wadanadan khaliijka ka jira, waxa dhahda majaalis shuura, waa been wayaan.
in loo bixiyo majaalis الاستشارة waa meelaha uu odaygo wadanka xukumayay wax ka weydiiyo markuu tallaabo qaadayo inka Mareykanka waxa ka jira majaalis istishaariya tigtanga laakiin majlis shura golahan loo yaqaano kongresska ah madaxweynuhu ma doorto kuma xidhna madaxweynaha xorbeeyeen qofku marka uu ka hor iman karaa dawladda haddii dawladdu khaldan tahay marka shuurada asalkeega maxaa shuuro ah xorriyad baa waa haddii kala shuuradu xorriyad ma noqonayso ولذلك ابو الهي لا اكراه في الدين دين لا ما قصبه الاستاذ ضاها جابر العلواني رحمه الله وحولي اذا كانت الايه قالت لا اكراه في الدين فهل هناك اكراه في السياسه؟ هذه دينتي ولا اسكو قصبين سياسه ما اسكو قصبي كرا واذا كان لا اكراه في الدين فهل هناك اكراه في الفكر؟ فكر كما اسكو قصبي كرا إذا كان لا إكراه في الدين فهل هناك حكر على الدين؟ بدد بديتها هاي سنة وضلك لك عيش كريا ما مسوى ثقلس صحابة أرتها ويفهمين ولذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وحديث كالكولي إنما الطاعة في المعروف عليه الصلاة والسلام مركا اللي اسديدو اللي اسكتعو اللي ودي كريوايو وحي صحابة يسمين منهجية التعامل مع الخلاف والتنازع سير لو كلا بحديث الاسكوري مادو اولا وحي حديدين المرجعيه تنازعتم في شيء لا بيقولي الهي رسولك عشان هذا خلافتان لبو وحي حديدين وحي ان نص لهينا الا تشهدوا استخدام العقل والاجتهاد فيما لا نص فيه صدح وحي حديدين وحي الله وباهن القضايا الاساسيه ان دد لغلا تشهدوا متخصصين كوا فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير قف خبير بكو ورمي كرايا إنه خبر هذا اللي ويديو يبارتي يويديان مرك أريتاس وحا صحابة الدور نلاش قصة بيريان فكريا هي أحد ليه وحي كلا كانين تحديد المرجعية العليا حد واحد نلاش قدرين إن نلاش هي صائبة بالسين صائبة سكسعطا عفوية ارتجالية نرشو اسكما سعطاون لا تحكم ذاتها بذاتها يضو اسمها كنتاون لابد وإن الحديو مرجعية سأمضوا نقول فوضى ولذلك القرآن كينا واحد عجيب القرآن لبحد موسمين من نوحول فلا تقربوها من نوحول فلا تعتدوها mid wuxuu yahay u dhawaanina midna wuxuu yahay ku xad gudbina hadaafina عدم الاعتداء حاجات tagaysa خارج الفطره فطرتي ba ka baxaysa عدم الاقتراب هذا سبسيدنا maxaad ku dhacaysa تطرف ba ku dhacaysa بين الافراد والتفريط ba ku dhoolanaysa ولذلك المرجعيه العليا waa maxay waa الكتاب والسنه وحي المرجعيه العليا وحي عن نص لهينا waa maxay waa ijtihaadkii aqliga qiyaaskii ولذلك دولة الإسلام وحا لغا بدبادية شخصنة الدولة إنه قف دولة يشو وحا كلو لغا بدبادية تيوقراطية الدولة إنه دد معين وسيدة ودادو كالي دولة قبصان وحا لغا بدبادية إنه دولة درار وقع عنقشو وحا كلو لغا بدبادية إنه وقع عنقشو دد مصالح لهم ولذلك الدولة وحويا هي للناس حكمكنا لله ورسوله شرعي إلهي رسولك أسكاله maamulkana dadka iskale arinta toddobaad ay ku guuleysteen saxaabadu inay nolosha dadka ku soo daraan wax weeyaan waxay sameeyeen nidaam ku salaysan al-adl iyo al-musaawat waa laba rukun yaqumu al-islam ala al-adl wal-musaawat maxaa keenaya imika markay maalka saxaabadu ka hadlayaan waxay yiraahdeen waa ina tawziicu sarwa waa in sarwada la qaybiyo sida loo qaybinaya liman'i dhuhur in laga celiyo saydarati ad-dabaqa ar-ra'samaliya inay soo baxdo koox yar oo dusha joogta oo lacagta oo qabsata sultadana maxaa laga celinayaa inay koox qabsato iyadana labada duqyaanku ka yimaadaan waa maxay waa as-sultatu wal maal waa qaaruun iyo fircawn sideed waxay ku guuleysteen saxaabadu inay waqtigii saxaabada ilaaliyaan xurriyaadka iyo al-xurriyaat al-asaasiya ولذلك حق الحياة قرآنك صحابته ويدور جرين حق الإنسان في الحرية ويدور جرين وها آذوا لا يابي كلمة مثلا
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إني بربركي نكلا إلهية كديا وإلهي سكودي ساس عبدو ورهيب هذا قرآنك وحكوا رهيبة لا إله إلا الله أنا وحن قصر لا إله إلا الله صدح أي كل صدح يبقى عقيدة الإسلام لا إله حكينا انتهي حرية مطلقة إلا الله وحكينا انتهي التزام محمد رسول الله لما حكينا انتهي اتباع الالتزام التزامكم حبايا منهج حبايا هرت إلهي إله مجره والحر باطل أصل كاي حر باطل أنا قفنا مع عبده هذانا إلا الله باطل والتزامته حاتري وحان قاري إنه جرو إله العابده إذن رفض براءة مارتي تمرد ثم التزام طاعة لله ورسوله كدبنا منهج كاد كو عابديس إلهي آويده التزام كاكم حوسو عنيا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اوكي انت سبحان كبحينا موضوعات waxaan imaanaa saxaabadu waxay lahaayeen mufakiriin waaweyn oo taariikhda gashay dad mufakiriina oo fikray lahaayeen saxaabadu maxaa kamid ah Abu Bakr Siddiq waxaa kamid ah Umar bin Khattab Abu Bakr wala dhaqmay ridada Umar bin Khattab isagoo filosofkii fikir islaamka Usman bin Affan فقيه عجيبها وحوليه مسائل دقيقة وحليه علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود حالي علمي يا عمر عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب من علمي وغي أبو حنيفة حالي مدرسة الكوفة وحويا وحاك له جري عبد الله بن عباس ومارت يسقونها نوين وعبقرية ومفكر ومفسرة وحاجري أبي بن كعب وحاجري معاذ بن جبل أعلم الناس وحاجري زيد بن ثابت أفرض الناس علم الفرائض حسابات كحزر لو قول لامي أبو الدرداء باجري وفقيه وينها وحاجري حذيفة وها المعلم الاستراتيجي وينها وحاجري عائشة رضي الله عنها وهي يدنا وحولبا مؤرخة مفكرة مارت شاعرة نصابة نصبك تاريخ لو نقولي محدثة أهيد راوية فقيهة أهيد أبو موسى الأشعري يجري وغيرهم ورموزتي ويان waxaan kaloo isla arkaynaa taxadiyaadka ugu waaweyn ee iyaduna ahayd ay saxaabadu waajiheen waa muhiim mawduucaasi waxaa kamid ahaa faraaqi qiyaadiga si u xaliyeen dhimashadii nabiga si u qabteen waxay qabteen tallaabo aan wali la arag oo imika xitaa Mareykanku ay ku dhaqmaan oo ah in aan maartay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la israacin oo la kala ilaaliyo maxaa yeelay mid hadduu dhinto kala sii qabanaya saxaabadu waxay diideen markuu nabigu dhintay inay nabiga aasaan ilaa ay dowlad dhisaan waa inay xaliyaan mushkilada faraqa siyaasi ridadii diintii markii laga baxay solutionka u heleen solution cajiib ah Abu Bakr radiyallahu anhu waxaa kamid ahaa dadkii badnaa ee diinta soo galay markii la furay sidee loo isticaabi doona si loo qeybiyo quraadii sida adduunka loogu maartay si cilmiga loogu fikiriyay saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxaa kamid ahaa liqaagii xadaariga dowladihii ay la kulmeen ee ilbaxaha furs maxay ka faa'iideysteen dawaawintii Umar suu Umar uga faa'iideystay dowladii fursiga dowladii maartay Roomaga hindidii jaynihii waxaas oo dhan alliqaa waxaan u bixiyey alliqaa alxadaari التلاقح الحضاري markay la falgaleen ilbaxnimadii kale adduunka ka jirtay waxaa kaloo jiro muhiim ah al-usus al-fikri li asr as-sahaba asaaska fikriga muxuu ahaa ee saxaabadu iyaduna waxaan ku soo koobaynaa inuu ahaa 6 kow waxyiga waa asaas aqliga xadaysan waa asaas ijtihaadka waa asaas maqaasid shariica in la eego waa asaas waaqica in la dhaqmo waa asaas in tajdiid loo cusboonaysiiyo asaas bay ahayd waxaa kaloo arkaynaa marka ay la dhaqmayaan waxyiga soo kayfa yatimu at-taamul ma'a al-wahyi wal-aqli ma'an labadan aqliga iyo waxyiga soo loo dhaqmay zamankii saxaabada horta waxay ka dhigeen waxyiga al-masdar al-awwal kow oo laga soo qaadanaya qiyamka laga soo qaadanaya fikirka iyo shaqada amalkaba labo kownka in la eego kownka in la fiiriyo oo laga soo baxay manhajul hayaat saddex in insaanka la akhriyo oo laga soo saaro cilaaqada uu leeyahay insaanku waxyiga afar in aqliga la ogaado inuu wax weyn yahay laakiin xad leeyahay hadana
majaalna uu leeyahay meel kasta ma gali karayo majaalkiisu waa kayf waxay kale heleen in caqliga lagu xoreeyo cawaa'iqda fikirka u diidaysa waxay kale heleen inuu caqligu aabbo u yahay xawaasda dareemada shareecaduna ay u tahay caqliga aabbo ay ka tahay marka taasina waxay ahayd arrimaha ay gaadheen ugu dambeyntii walaalayaal ta'siirka ay saxaabadu sameeyeen ay ku sameeyeen alcamiiq ee gunta dheeraa walkabiir ee weynaa fikirka bashariga ee adduunka yaallay kow adduunka waxay bareen wax la dhahdo taxdiidu lmarjiciya in adduunka uu jiro marjic meel lagu laabo reference bilaa reference nolosha ma soconayso taabay bareen adduunka laba waxay bareen alqiyam alxadaariya in la xajisto qiyamka نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام من ضيق الدنيا إلى سعتها والدار الآخرة وقيم طابع برين وحي برين الربط ما بين النص والواقع إلى النص كلي شقين هذا واقع على فالقلي واقعنا إنه باهيها إنه النص كوسيماد تاسي برين وحاكى لها إن عقل واوين الصحابة لشقيسيو caqliga la baro in la shaqaysiyoon la xidhin iyagaa bare basharka waxay bareen inaa la iskhilaafi karo la noolaan karo isla noolaan karo khilaafku meeshu doonaya gaadho xataa dagaal ha gaadho in la wada noolaan karo waxay bareen in la dhaqmo maqaasida shareecada intaas oo dhan waa ta'siirkii ay saxaabadu sameeyeen ridwaanullaahi calayhim ajmaciin waa darsigeenii labaad insha allahu tacaala inta aan darsigeena saddexaad ku kulmi doono oo ay noogu xigi doonto darsigeena saddexaad inaan furno yowm aan u bixinay maalintii wada hadalka iyo niqaashka iyo dooda wixii aan soo akhrinay saddexdii darsi ayaan furaynaa afkaartiinaan dhegaysanaynaa aniguna wixii aad weydiinaysiin baan ka jawaabi doonaa xataa yakuuna alcilmu baynana mawsuulan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh